بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد آياتها قرآنك وعدي دينك أو نلا وعدي الله نقو أنفعه ساكي شركان نسوون نمت واسيادة نبضونا دا علماء الدين كدتك شرفت له هويوينك قبلها والسلام علينا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كان لنا لباتك جرت قبل كجدو لباتك يا ودوية لباتك يا ودو annaga reer jubbaland baan nahay jubbaland waxaan ka nahay federaal yaan ka nahay dawladdii federaalka aheed baa wadda dhibaatada gobolka geda saad ula socotaanba luuq ganaana doolow beled xaawa guluf colaadeed baa ka jira gulufkaas xagguu ka yimaaday dawladda federaalka ayaa waddo arrimahaasaan doonaynaa saaki inaan ka hadalno waa lagu geeriyooday gulufkaas colaadeed waa lagu dhaawacmay waa lagu qaxay oo qax baa ka jira dhibaatadaas foosha xun baa ka jirta gobolka gedo nasiib darro weeya dawladdii federaalka ahayd oo ummadda dawladdiisi ahayd inay dhibaatadaas waddo nasiib darro aad u xun wey waan ka digaynaa saakay haddaan nahay odayaalka dhaqanka aniga magacayga waxaa la yidhahdaa ugaas maxamed ugaas xasan ugaas yarow ugaaska beesha sadaan nahay ama mariixaan ninba sida u yaqaano waxaan ka xumahay dhibaatadaas jirta waa aad baan uga xumahay gobolkaas gobol nabadgelye buu ahaa cadow baan lahayn cadowgaan lahaynna waa la yaqaanaa cadow tilmaan e buu ahaa waa la yaqaanaa soomaali oo dhan way ogsoon tahay soomaali oo dhan cadowgeeda wey dawladda federaalka in maalin walba ay meel ku duushana dhibaato inteeda la eg weeye galmudug baan arkaynay dhibaatada ka jirta puntland baa laga cabaadahayaa oy dhibaato ka jirta oo laga cabaadahayaa jubbaland baa haddeerna dhexdeedii bay dhibaatadii ka wadaa waxaan baaq u soo jeedinaynaa baaq dheer u soo jeedinaynaa dawladda federaalka dhibaatada ay wadda ummadda ha ka joojisa madaxweyne ninba maalin buu soo maraa kumeel gaar baa la soo maray dawlad dhaxaa la soo maray dawladda hadda joogtaa la marahayaa waa nasiib darro aad u xun weeye nasiib darro aad iyo aad u xun weeye maxamed cabdullaahi farmaajo in maalin walba gobol isdhibaateeya waa waxaan la yaabanahay wey ha ka joojiya ummadda dhibaatadu ku haaya ha ka joojiya taariikh baa jirta madaxweyne walba laga qoro oo maalin ahaa jirta war madaxweynihii jeerkii muxuu sameey baa laleeyahay taariikhda berri baa la akrin doonaa ninba maalin buu hayaa nin ku waarahaya ma jiro aadan cabdullaahi cismaan baa ugu horreeyey cabdiriid cali sharmaakaa ku xigay maxamed siyaad barraa ku xigay cabdiqaasim baa ku xigay mase wax baan dhaafin cali mahdi baa muddo kooban hayey cabdiqaasim baa kaga dambeeyey cabdullaahi yuusuf baa kaga dambeeyey
sheekh shariif baa kaga dambeeyey xasan sheekh maxamuud baa kaga dambeeyey maxamed cabdullaahi farmaajaa haddeer haya way degi laadahay soomaaliya way degi laadahay af waxaad lagama dhowro way degi laadahay dhibaatadu soomaali ku haya haka joojiyaan leenahay baaq dheer baan u diraynaa soomaaliya caalinkaan u diraynaa dadka deriska ayaan u diraynaa dhibaatada ka jirta gobolka gedoos haddeer ka socota ka joojiyaan leenahay haddii laga joojin waaye kolley nin walba wuxuu ka maal u leeyahay wuxuu ka maala uu leeyahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhibaatada ha ka joojiyo ummadda beresenta ummadeed baa tahay waa nasiib darre aad u badan weeye in ummadda haddeer adqaxinaysa ciidamo ku guraysa u adeegsanaysa hooyooyinkii ay duurka ku dhalahayaan dhibaato inteeda la eg weye waxaan soo jeedinayaa magacayga iyo magaca odayaashaba anigoo ku hadlaya iyo magaca reer gedaba dhibaatadaas ha laga joojiyaan leenahay gobolka geda lagu haya iyo gobollada oo dhan aniga hadalka intaan kaga baxayo asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu